taliyaha ciidamada asluubta ee Soomaaliland Maxamed Xuseen Faarax iyo saraakiil oo hogaaminaya ayaa maanta howlo shaqo waxay ku yimaadeen caasimadda gobolkan ee magaalada Boorama. Taliyaha waxa uu kormeer ku soo maray xabsiga weyn ee gobolka Awdal isagoo soo indheeyay xaaladda nololeed ee maxaabiista ku jirta xabsiga gobolkan, waxaana taliyaha ugu warbixiyay xaaladda ciidamada asluubta ee gobolkan iyo maxaabiista ku jirta xabsiga gobolkan. Taliyaha ciidamada asluubta ee gobolkan Saciid Xuseen Caynaan sidoo kale taliyaha guud ee ciidamada asluubta Soomaaliland Maxamed Xuseen Faarax ayaa kadib markii uu soo dhameeyay kormeerkiisan indheynta ahaa waxa uu ka waramay ujeedada socdaalkiisa maanta ee magaalada Boorama. caadiga xabsiga ku soo jiray inuu kormeerayna xaaladda ciidanka, xaaladda maxaabiista, dhismaha xabsiga, dhageysiga maxaabiista inuu mataqaana ay ku raayay waqtiga ku dhaafin kare. alxamdulillah waxa kala weeyay maxaabiistii qofku waqtigiisa wala ilaaliyay. waxaan ka sii wareeyay kii gabadha soo maray soo kala soo maray saaka sideedii oo soo maray kana xabsiga laad buu ahaa. waxay su'aalkeen jidis waxa weeye in aan soo noqdo taliskinahay nolosha maxaabiista daryeelkooda dhaqaaleintooda annagu ku wacyigelinaya xabsiyada in xabsi walba uu ku habboon deegaankiisa ula soo baxo sida hadda Mandheero ka wax laga sameeyay baashi faaradii yaagi beeraha inay mataqaanaa ciidanku ay maxaabiis leeyihiin waxaana ka naan ka sameeyay dilaa ka dhigo saama hadda ma inuu ka soo bixi karaan ama shaashuraado ama murada hadda wixii mataqaanaa deegaan walba wixii ku habboon lagu faa'iideeyo xooga maxaabiista iska fadhiya yana inuu noqoto caafimaad u noqoto waa muhiim saasay hay waxay shaqaana oo si lagu talagalay sidoo socdaan عبد الفتاح أحمد هدوناج نيوز مقالة بورما.